halkan waxaan ugu jawaabi doonaa dhowr su'aalood oo ku saabsan halyeyga qaranka dalka Argentina Diego Armando Maradona. Kumuu ahaa Maradona? Gobolkee ayuu ku dhashay Diego? Sanadkee ayuu dhashay Maradona? Dhirirkiisu meeqa ayuu ahaa? Xaafadda uu ku geeriyooday magaceeda iyo weliba sababta ka dambeysay geeridiisa. Balse intaadan muuqaalka aan guda gelin, waxaan ku xasuusinayaa inaad muuqaalka like saarto lana wadaagto saaxiibadaas si aan u helno saaxiibo wanaagsan oo adigoo kaleetood ah. Hagaag, Diego Armando Maradona wuxuu ahaa xirfadle kubadda cagta dalka Argentina iyo weliba maamule kubadda cagta ah. Waxaa loo tixgeliyey inuu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu wanaagsanaa ebed. Wuxuu dhashay 30 Oktoobar 1960 gobolka uu ku dhashayna waa Lones. Wuxuu dhintay Nofeembar 25 sanadkan 2020. Xaafadda uu ku geeriyooday waa Tigreya oo ku taala gobolka Buenos Aires ee dalka Argentina. Dhirirkiisu waa 1.65 mitir. Sababta ka dambeysay geeridiisa ayaa baaritaan hordhaca oo la sameeyey lagu shaaciyey inuu Diego Armando Maradona uu qabay xanuunka wadnaha, sidaa darteed uu u geeriyooday wadne xanuun. Diego Armando Maradona ayaa loogu yeeri jiray The El Piediora oo macnaheedu tahay wiilkii dahabiga ahaa.